أحمد عبد الله إلى الله صوربانه هاي هذا كل شيء الحمد لله رب العالمين. طبعا قعدت أنا وجوبته يوم القبلات كدولة فدرالك إنه ذكر ير وأنا بعدما أنا قلنا هاي بودك كلوميسك وورشد عصور خاتو تحي وروش وأنا نقول لك أن الدم كان أنتم سومالي نقصوا ورجال سيرع إلى يراس كابودي سامية يرميش وقفي عنه ونقطة ولا صوري أما الجود بحنول أنا هيدا والود كوادك كبسيسي ولا أنا قلنا وكنا والله أنا قلنا جم سمع يجي مركها وين ده كده ير وكليب كده عداوتين وسمية ونوكردين وأنا هدو ما أنت تكذب حاجة أنت قبل أنا ما أنت شبه أصل هين والك كنت جيد أنا بدي دميسي ووحوين أنا حين هدي وحلو كذا وأنا عيو وأنا وحنا عسرنا وكبرينا أنت أن كسو والبحيي إن تكذب نلو حقا ولا أنا هاي نلو للسوق تذكر ما تكبرني هاي قالوا تكبرني هاي وحافظ له عداوتين وقاعد واقع أنا هاي سجل وواحد سوكر لي وهذا في هذا بيسي أنت سوح قاعد إليه الملك وهم تبدأ وهي إن ملك دكتوران وكوب بعدان وكذا بانو كعد سنة حدانو نهاي دقان كلا صغري أركا وحنتا حجينيا وكدريا وكعد علينيا مرمادي ومسدحات وحل يري أنكم سووا حيش هذا فمالكم هذا وحن كعد علينيا والسيركة دكذا دولة فصار عبد الله أحمد جامع قارهان بس وحن سجارة نكوي إن بعدها منطقة إلى كسر جديد وسيركة دكذا أنا تهاي دكذا أنه وين أمانة إنترناشونال ولا كذا قالوا لكن جيت يرحق بأنه أولي أنا هاي هنا دولة فصار كدولة مسؤولية عدو هذا كنت داشله وحنا قصور أنت ضياش الكسر هذين وحوي قدري مايو ليش أن تاريخ هذا والأولى هي حلقة ما ترى وداوان إنسانين وحيابها القصة دوبي يهيرك إيجوبته ما ترى أدون كويس بدلي وحيابها بعض سوكر ليس إذا قاعد سوكر ليس إذا سوكر لي دولة فدرال يمد معمر كجبلات كبدلان اليوم قل بتشوف أنت بوحنا كعصرنا inay dib u soo eegaan dalkii ay ka soo jeedeen iyo deegaanka ay mas'uulka ka yihiin inay wax ka qabtaanin oo dekada ay noo dhisaan kalluumaysiga warshada kalluumaysigana qaab ahaan dib loo dayaco oo la qalabeeyo oo la hagaajiyo waayo waxa ku nool dad intaas oo bilyana baa ku nool meeshii sidaa daraadeed waxaan haddana ku sii xoojinayaa wasiirka dekadaha iyo khayraadka badda Abdullahi Ahmed Jaamac oo kala soo jeeda mandaqadan aan maanta fadhino aan ka hadlayno ayaan waxaan ka codsanaynaa si kasta uu la kaashado maamulkiisa iyo dawladdiisaba oo la kaashado ama adduunka Ilaahay waxa jira maalgelin baa jira oo adduunka ay ka jiraan inuu la kaashado aan doonayna inuu wax ka qabto oo u soo jeeso arkana meesha aan ka hadlayno mandaqada aan ka hadlayno uu ka soo jeedo sida daraadeed waxaan ka codsanaynaa inuu aad iyo aad xataa ay ku khasbantahay inuu noo yimaado oo kormeero oo arko oo indhaha saaro meesha waxa yaala isagoo arkaya duubitaankeedaba intaas waxaan ku darayaa kalluumaysiga waa laga dambeeyaa usagana
waxaa jira Puntland wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda mashaariic ka timaada meesha tan xoogaa dib u dhac baa ku jira oo sida ay doonaysaa wax uma hesho waayo ma aqaan dadka ka soo jeeda baa wakiilada ah baan anugu xoogaa dhaliilayaa sidaa daraaddeed waxaan doonayaa oo aad iyo aad u rajaynayaa dadka ka soo jeeda ee Puntland iyo wasaaradda kalluumaysiga u jooga in ay u soo kordhiyaan anfacaadda laga helayo khayraadka laga helayo dowladda Puntland وبالله التوفيق انت انا waxaan ku hadlayaa magaca shaqaalaha ka kalka shaqaysta kalluumaysiga badda sida la idin sheegayba de anagu odayaasha u hadleen dhibaatada ugu weyn ee meesha aan ka taagan waxa weeye oo gaadiidku naga burbura oo waxba naga jawaab waa tikad la'aan iyo meelaha qalabka gaadiidku soo xirto sida daraadeed waxaan ka codsanaynaa waysiga wasiirka dekedaha inuu dowladda federaalka nagala kaashado sidii deked yar oo kalluumaysiga ama aan ku manaafacadsano noogu samayn lahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi cali cabdi sayare baan ahay waxaan ka tirsanahay wasaaradda kalluumaysiga Puntland wakiil jooga baan ahay magaalada degmada Asqoray odayaashu intay ka hadleen waan la qabnaa waxaan rabnaa magaalada waxaa jira kalluumaysiga iskaashatooyin badan bay lahaan jirtay iskaashatooyinkii baryaha ka dambeeto waxba maamulada kama soo gaarin ama dowladda federaal ha noqoto ama maxaa ku dhahay ha noqoto aad iyo aad bay xaggaa uga dayacan tahay waxaan rabnaa in la xoojiyo loo tixgeliyo loo eego mandaqad weyn weeye mandaqada taariikhdeeda laga soo sheekeeyey weeye dad ummad badan baa ku nool gaadiid badan baa jooga waxbaa ka dayacyo badan bay qabtaan wixii dee dowladda iyo maamulka Puntland waxaa kala dhici kastaba iyo NGO-yada ummaddu ay ka hesho oo maxaa ku dhahay mandaqaduhu ka helaan degmooyinku ka helaan wixii xaq ay u leeyihiin inay helaaniin ayaan rabnaa insha Allah bismillaahi kariim halkaas waa maqlayseen odayaashu ka warbixiyeen deked yar baa ahaan jirtay gaadiidku aad buu u fiicnaan jiray xilliga dabaylaha soo geli jiray maxaa ku dhahay warshadii dee kalluumaysiga oo la asqoray oo maxaa ku dhahay warshadii horeeto ruushkii baa sameeyey dhulkii wuu burburay waxaa loo baahan yahay deked maxaan ku dhahaa xilliga dabaylaadka meesha marsadeeda sida kale waa fiicantay laakiinse deked yar oo dugsi ah oo maxaan ku dhahdaa gaadiidku ku soo xirto waa loo baahan yahay ummaduna haddeer maxaan ku dhahdaa waxaa la ogaaday dadku inay wax qabsan karaanin oo samaysan karaanin dadka joogta iyo dadka maxaan ku dhahdaa mandaqada u dhashay iyo maamulka Puntland iyo dowladda federaalka inta waxaan ku codsanaynaa in loo tixgeliyo waxaanu xaq u leenahay oo maxaan ku dhahdaa khayraadka ama dalku khayraad u leeyahay oo gaadiidkaas u badbaadayo iyo dadkuna ku manfacaad ka helayo maxaa dadku u dhibir in naloo tixgeliyo baan rabnaa wax naloo ka qabto wasiirka kalluumaysiga wasiirka maxaan ku dhahdaa kalluumaysiga dowladda maamulka Puntland iyo maxaa wasaaradda oo dhanba waxaan ka codsanaynaa inay noo tixgeliyaan maxaa ku dhahdaa waxyaabaha lagu kabo degmooyinka oo ay xaq u leedahay degmadu in loo tixgeliyo oo nala ka siiyo wixii aan xaq u leenahay sida odayaashu sheegeen wasiirka dekedaha iyo dowladda federaalka waxaanu ka codsanaynaa iyo ummadda kale oo wax qaban kartaba waxaanu ka codsanaynaa in halkaan loo ka sameeyo deked in kastaba ha leekaato dekadaas anagu deked yar oo hadeer baahida weyn oo noo taagan waa deked yar oo maxaan ku dhahdaa gaadiidka kalluumaysiga ay ku badbaadaan Abdullaahi Axmed Jaamac waxaanu ka codsanaynaa inuu mandaqo ka soo jeeda mandaqada la asqoray waxaanu ka codsanaynaa inuu wadankiisa wax u qabto oo maxay haytay sida rag uba ka hadleen oo kale waanu ka doonaynaa ka codsanaynaa ka hadlayna la asqoray waxa weeye waa meel runtii aad iyo aad u istiraatiiji ah waxayna ku taallaa badweynta cas waxayna u dhowdahay baab mandeb waana meel runtii aad iyo aad u istiraatiiji ah doonyuhuna runtii ay maaragtay ay aad ugu fududiyiin inay yimaadaan waagi horena waxay ahaan jirtay marsoo la asqoray caan bay ahayd xilligii dowladda Soomaaliya kula dardaarmaya in ay dekada la asqoray u soo jeestaan ay wax ka qabtaan in aynu inagu maaragtay sida garacad kale aynu dekada ay dhisano waayo garacad baa dadkeeda dhistay la asqorayna dadkeeda bay u baahan tahay inay dhistaan eg waxa la yiraahdaa markaad wax qabsatid wax lagu dara marka haddii inagu wax qabsano waxa la helina marka bulshada waxaan ugu baaqaynaa in ay bulshada hurdada ka kacaan
ay qabsadaan waagi hore waxa la moodi jiray in dawladda keeni karaan ee dekedaha laakiin hadda si wax la arkay in haddii la isku tashado in deked la samayn karo waxa la qabsan karo goobta la dhisan karo isku tashigu waa wax weyn anigu waayada hore waxaan ka shaqayn jiray sida adiga macnaha aad ogtiin barnaamijka khayriga ah laftigeedu tan waa barnaamij khayri ah weyn runtii kuwa anigu aan ka shaqayn jiray masaajidada maxamadaha barnaamijyadaas bay ahaayeen حتى سي لكن أنا مقتنع إن فرصة اللي شقابو وحبذن ألاقي سمين كرو وحبذن ألاقي معركتي قربية إن شاء الله تعالى وإن شئنا أحتاج دورة وسوق بجبينية وبلا توفيق. Oops, don't